بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan kelmid ka oranayaa xukuumadan maanta jirta ee madaxweyne Siraayi madaxweynaha ka yahay waxay baryahan dambe maalmahan dambe u dambeeyay la soo baxday inay xarig kula kacdo dadka bilmageedaya oday dhaqameedka sidaas hore u ogeydeen maalin dhaweyto waxa la xiray gudoomiyihii iyo ku-xigeenkii talo iyo tawfiiq sida maanta aad warka ku haysaana hadda waxa xiran xasan axmed muuse xasan goodaad oo ah xogayaha xanaanada xoolaha xisbiga wadani intaas waxay kasoo marka loo eego dhinac waxay ka soo wada jeedaan isla beel kaliya oo ah beelaha degan dalkeena hooyada Soomaaliland waxaan leeyahay taasi waa nasiib darro xukuumadana ceeb bay ku tahay qarannimada Soomaaliland ceeb bay ku tahay in oday dhaqameed iyo siyaasiyiinta beel qura ka soo wada jeeda dawladda maanta ay taarget ka dhigato waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa inay si degdeg ah xorriyadda u siiso xogayaha xanaanada xoolaha ee xisbiga wadani habeen hore gurigiisa lagala baxay taasi oo markaad la xiriidho ciidamada amniga iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo cid kastoo la xiriidha markaad weydiiso aad tiraahdo xarigaas wax ka weydiisan kooran nin walba ku leeyahay aan waxba kuma ogi marka qof la soo xiro ee ciidamada amnigu yiraahdo waxba kuma ogi wasiirka arrimaha guduhuna yiraahdo waxba kuma ogi waayo cidda wadanka ka talinaysa wax soo xidhaysa waa su'aal aad la isku weydiiyo waxaan xukuumaddan u sheegaynaa in qarannimadan Soomaaliland dib badan loo soo maray in xukuumaddan looga fadhiyo inay midayso shacabka reer Soomaaliland inay ka dayso agajugleynta iyo ciidamadan imika ay xukuumadda la soo baxday inay taasi ku tusayso in ay tahay tii ay ku baabaaday qarankii dawladdii la oran jiray Soomaaliya shakhsi guri lagala baxay iyo shakhsi la xidhay iyo oday dhaqameed la soo xidhay iyo waxa siinayna wax karaama ah oo ay keenaysa ayna jirin cidii laakiin ku gafta qarannimada iyo dawladda meel kaga dhacda xaq bay dawladdu leedahay soo qabato laakiin in oday dhaqameedka iyo siyaasiyiinta lagu xidho hebel bay meel ka soo wada jeedaan waa nasiib darro waxaan ugu baaqaynaa inay si degdeg ah xorriyadda u siiso xasan axmed muuse xasan goodaad waa xogayaha xanaanada xoolaha ee xisbiga wadani arrinta aad baan ugu xunnaa waxaan leenahay xukuumadda si degdeg ah xorriyaddeeda u siiyo. Assalaamu calaykum.